السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة ضيال ملك صد جوكتان يا قاب كصد كسوغن تهيم با آد بانيدين سلامية واني قوا ولادين هالقام سحانة. Soomaaliya ha noolaato ayaan idin leeyahay Ethiopiana ha dhacdo ogaadeenayna ha xiroodo halku hayskaygi weeyaan Allah sahlay halku hayskaygi weeyaan goobtu ma xishooto goobtu mana gabato goobtu isma qariso goobtu xaqiiqada dhabta iyo gobonimo doonka iyo haykalka iyo hayaanka ummadda Soomaaliyeed ku socoto Allah sahlay ayay kol kasta taariikhdeedii iyo raad raaceedii bay ka hadashaa Allah sahlay caawa waa qormayar Allah sahlay oo xusuus reeb ah farmaajo wama adraka ma huwa farmaajo wa kuma farmaajo kumu ahaa farmaajo se kumu noqday farmaajo kumu noqon doonaa farmaajo kobteebu eega maraya maanta waxay ka sheegan tahay farmaajo waa madaxweynaha dalka iyo jamhuuriyadda Soomaaliya Allah sahlay waxa geebu matala jamhuuriyadda madaxa bannaan ee Soomaaliya yuu mas'uul ka yahay ummadda Soomaaliyeed bulshaweynta Soomaaliyeed ee goobta ee ku kala dhaqan daafaha dunida dacallada caalamka wuxuu madaxweyne u yahay ogaadeenaya hadda eegata ogaadeenaya Jubbaland Allah sahlay Djibouti NFD Xamar koonfur waqooyi hargeysa iyo in kale oo lagu wada qurxiyay Allah sahlay ayaa wuxuu u ahaa maxay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxa bannaan ee Soomaaliya xaruntii buu dhex fadhiyaa Soomaaliyeed farmaajo waa kuma la moodayay farmaajo se kumu noqday farmaajo kumu ku dambeeyay Allah sahlay haddaad aragtaan calaamadda gobonimo doonka jawxo anigoo wata oo ka hadlaya arrimaha daaqilka iyo waxa weeyaan shu'uunta dalka Soomaaliya waxa igaga hadliyay kolle shacaarkayga kobtaasaad ka muuqataan farmaajo khaladaadkii uu galay farmaajo dambigu sameeyay farmaajo fiidiyoyo badan oo boqolaal ah Allah sahlay oo ka horeeyay anigoo shakhsiya maalintii la doortay aan ku amaanayay waa jiraan farmaajo muxuu ugu jawaabay oo ugu dambariyay ummadda Soomaaliyeed farmaajo khaladaadkii uu galay Allah sahlay iyo dambigii kabaa'irka ahaa ee weynaa ee shacbiyadiisi ka hor keentay horta apologies iyo raaligelin ma ka bixiyay waa kuma farmaajo qodobkaygu caawa waa inta bulshada Soomaaliyeed meel ka soo joogto kolka hore waan salaamayaa waan raaligelinhayaa waxaanan doonayaa balaada inaan yaraha dul istaago farmaajo iyo koobtu ka fadhiistay farmaajo koobtu ka fashilmay farmaajo koobtu wax u wado farmaajo koobtii la rabay inuu wax u wado iyo farmaajo eega koobtu waxa weeyaan cagaha saartay iyo meeshu ka laalaado halkeebuu maamulaa hadda halkeebuu xukumaa eega halkeebuu u socdaa eega ma Itoobiya cilaaqaad leeyahay eega Itoobiya se ma laga adkaaday eega farmaajo koobtee iyo darajadee buu hadda saaran yahay halkeebuu kolkii hore saarnaa Allah sahlay hadalka waxaa Soomaalidu ku wada biyo sacabadaada biyo shayga la yiraahdo sacabadaada ayaa loogaga dhargaa ummadda Soomaaliyeed ee shantiihi gobonimo doon ayay soo martay SYL bay soo martay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan bay soo martay gobonimo doonkii guud iyo Axmed Guray bay soo martay Soomaali Allah sahlay waxa ugu dambeeyay gobonimo doon dambe oo halgama horna istaaga cadowga daalimka ee doonaya inuu qaato geyga Soomaaliyeed gobonimo doonka maanta calankiisi aan wato ee onlef waxaan soo qaatay oo meesha soo saartay sifa kale aniga igama waa qalbi dhagax bitacliiq yani inuu xusuusto kaliyata ummadda Soomaaliyeed inay xusuustaan kaliyata farmaajo waa kuma xanuunkii soo gaadhay shacabka iyo qulubta ummadda Soomaaliyeed Allah sahlay farmaajo maxalliyay oo ma daaweeyay mujarrad waa inta walaalayaal dan kale malihi Soomaaliya ha noolaato aniga idin leh Soomaaliya waa mid aniga idin leh Soomaaliya cadawgeedu ha burburo aniga leh laakiin mid baanan ogolaan haynin tubaanan kollaba qalbigayga aanan ka degaynin Soomaaliya waxa wadaniya oo xukumi doona oo xukuma farmaajo iga degi mayso haliyay qalbi dhagax ninkii intuu qabtay iibiyay
horta shacabkii Soomaaliyeed ee maalintii wada naxay qulubtoodii ma dhaawacay intuuna Jubbaland begelin intuuna dhihin wadani Soomaaliyeed baan ahay intuu sasa u baxsan sargaal Ethiopian oo waliba ahmar oo naqaano raggan ku shahiideynay Allah sahle intuu u dhudhumanayo isagoo aanan war ka haynin gobonimo doonkii jowxa inuu guuleystay Ethiopian halka hayo oo ka adagna Ethiopia annagu waan ka adagna Ethiopia waa ka adkaanay Soomaali galbeed Ethiopia way ka adkaatay Allah sahle يعني قال ير أو في الصومالي سوى نحفر لي وحا كنا نعسن مسكحلي سينا نكا كقفلا مدحوينها جودة مدى الصومالي هذا إثيوبيا أيا حكمتا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إثيوبيا أيا حكمتا جودهان شنتي الصوماليات أيا كقفلا وكاس إذنكو كنا دعية بل قف كستو الصومالية بالله عليكم وحنا نكو عصنا هنا في سان فيديو بشيء الوقتان قف كستا أو ودنيا أو صوماليات أو إنهم ضمير له بل أرنتا يدا طبقة كسبي وايبو مدحوينه قلبك إيه النيادة إيه الصومالي نماذا وقد داهير لايه وإنت اللي جوجا مال انت اللي دورتها وقلبي نجح إثيوبيا ودي قلبي نجح ما أنت إثيوبيا أنت السود يسوي تقولي بتانكي ورالين أهو هل مالين انتو سو استاجي معشر كأمة داوانا يسو أرنتا بلشدي الصومالي هذا بالله عليكم وانكو قلدمي إيجار رالي هذا ميو يدي مدحويناس أنا وكما هي سكرية جبلان ومامور كمدا أو أمة صومالية كمدا صومالية أنا وحنكو هيستا خلادات كي ووينا وقلي مدحوينها الدالك الصومالية أرنتاسي وأرن قفأ وانا أرن محكمة دا أدون كاللغو ساري كرم مدحوينها قبل مدون كأونا فانكو عصانا يا شعب كالصومالية وكو عصانا يا دنبي ويان كبائرة وايو أفرطان يشن مليون oo qulubul hayy umma Soomaaliya ayuu dhaawacay ma haysan apologies u bixi 500 qof maalin waxa weey qarax lagu dilay tacsixita miyuu diray waxa kaloon sheegaya why waa madaxweynihii dalka Soomaaliya why ba meesha isagu degan yahay goobtii filla Soomaaliya uu qaruxu 24 hours uu uga dhaca annagu haddaan nahay gobonimo doonkii ONLF Allah sahlaya haddaan nahay gobonimo doonkii dhigooda soo huriyay ee u soo shahiiday karaamada ummadda Soomaaliyeed annagu kol kasta waxaan leenahay Soomaali waan jecelahay jiritinkeedii Soomaali waligeena waanu jeclaanhaynaa because calaamadii buluug ahayd dhaxan ku wadanaa war maxaa loo waayay madaxweynaha dalka Soomaaliya bulsho Soomaaliyeed oo wadani oo ku kacday inay warhaadha kale xageed noo wadaadee yaa akhay xageed noo wadaa wax yiraahdo maxal way muxuu isu weydiin waayay madaxweynaha dalku ma ciidu matala oo xukuma ma filla Soomaaliya oo xukuma mise qulubul hayya oo dhan 45 milyan ka badan buu mas'uuliyo matala siyaasadda madaxweynaha dalka Soomaaliya maxaa ka dhigay untayda ku cayo dadka waan iibsanayaa dalkana waan gadanayaa al-shabaab su'aasha kale ugu wareegaysa xamar maxay qarax uga bixi laaday annagu haddaan nahay gobonimo doonka ururka ONLF Allah sahle iyo taageerayaashiisiiba haddaanu nahay dadkii ka soo fircamay Axmed Gurayo usul taariikh iyo SYL iyo Sayid Maxamed Cabdullah Xasan adeero goobaan nahay annagu Ethiopiankii wali waan saysanaa aftidan oo ka soo qaadinaa Soomaalina inay goob ahaataan u doonaynaa war maxaa loo waayay madaxweynaha dalkan meeshu joogo maxay al-shabaab qorxisa koobtu joogo maxay gudnimadu uga jirtaa koobtu joogo maxaa ummadda Soomaaliyeed loogu dhibaateeyaa waxaan ka doonaynaa ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya farmaajo ninka la yiraahdo ma isaga madaxweyne isu ah waa iga su'aal ma isaga ayaa madaxweyne isu ah oo isxisaabiye isu ah oo la taliye isu ah oo soo doona yeela mise wuxuu matalaa qulubul hayya umma Soomaaliya jamiicaha li ajmaca ayuu matalaa madaxweyne u yahay su'aashan ka doonayo ummadda Soomaaliyeed ee firirsan ee daafaha dunida dacallada caalamka ku dhaqan waa taa weeyaan wuxuu yiri wadani baanahay ina qalbi dhagaxo ooyaya ayuu intuu aabihii dhiibay ayuu waliba islaantiisiina suuqa ay ku dhacday ayaa uu aabahay isoo daale ayuu ka soo masaafuriyay Nairobi geeyay
qalbi dhagaxoo dhiiggiisii iyo dhuuxiisiiba u soo shubay dalka iyo jamhuuriyadda soomaaliya soomaali ma yahay mise ma ahan qalbi dhagax yes of course waa soomaali arrintii iyada ahayd waa lagaagaga daba iman hayaa allah sahlay muxuu isu dhihi waayey madaxweynaha federaalka soomaaliya dembiga intaa lee kolku galay muxuu u aamusay ilaa isagaa ka dambeeyey ilaa iyo eegana qalbi dhagax waa soomaali dalkana isagaa iskale kismaayo uu tegey oo boosaaso uu tegey oo garowe uu tegey oo hargeysa uu tegey allaha sahlee waay war muxuu u tegi waayey magaaladii caasimadda ahayd ee ummadda soomaaliyeed yaakhaw soomaali maxamedey yaakhay goobtii SYL ay dhashayay farmaajo waxaa weeyaan hoyguu joogo qalbi dhagax muxuu u tegi waayey waayo farmaajo dhiig iyo dhaacaan iyo dhidid midna dalka muuna u soo shubin dhalad soomaaliyana inuuna ahayn ayaa muuqata khalad iyo weliba maskax ku qufulan oo Itoobiyaannima oo sixran inay ku jirto ayaa xaqiiqa waxaa kale oo xaqiiqa mahbal inuu yahay dalkana aanan lahayn waxaa laakiin looga fadhiyaa allah sahlay shacabka Soomaaliyeed Jubbaland iyo Puntland iyo Somaliland ogaadeenaya Djibouti iyo NFD ba iyo xamar iyo koonfur waa dal Soomaaliyeed weeyaan yaa taageersan xagee laga taageersan yahay maanta wuxuu haystaa koonfur galbeed oo cagta galeen iyo lugta galeen uu ula kala baxay ciyaal suuqnimo wuxuu ka qabo dadkii loo doortayna cagta galeen iyo lugta galeen buu bixiyay waxaa markaa iga degi weyday anigu haddii oo isoo xusuusisay taariikhda madow ee farmaajo uu galay oo aan ku samri waayoon waxa weeyaan kaga hadhi waayey baa waxay tahay allah sahlay madaxweyne farmaajo khaladaadka intaa la eg markuu gelayay ee qulubtii ummadda Soomaaliyeed u dhaawacay way ayaa ilaa eega hal sana u hadhay apologies iyo raali gelinta u bixiyo uu u dhihi waayey wargobtii Soomaaliyeeday allah sahlay warta khaladka ummadda Soomaaliyeed buu ka galay madaxweynuhu khaladkii uu galay allah sahlay ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu ka galay kolkaan ka nimaadno ONLF iyo guulaha ay gaadhay kolkaan ka nimaadno Itoobiya iyo koobtaan dhignay kolkaan ka nimaadno ee aanu u soo laabanno Soomaalinimada iyo hadafkanagii guud ee gobonnimo doona Soomaalinimo ee SYL iyo Axmed Guray allah sahlay annagu haddaanu ahayn shacabka ku dhaqan Soomaali galbeed ogaadeenaya ilaa iyo eega tooshkanagu wuxuu haystaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wax nin weyn raali geliya xataa raali ahow war raali ahaada qulubti annaga ma ahante annagu Soomaali baan nahay annagu Soomaalida baan nahay oo Soomaalidii gobonnimo doonka ahayd ee weligeed ba soo halgamaysa baan nahay waxaan u baahnayn tan shacabkii Soomaali galbeed haddaan nahay qiyaadada Soomaali galbeed haddaanu ahayn gobonnimo doonkii SYL allah sahlay iyo Axmed Guray waxaanu doonaynay oo nu jeclayn allah sahlay ilaa ninku waa Soomaali baa la yiri oo ninku axmaar ma ahan ilaa ninku waa madaxweynihii dalka Soomaaliya la yiri one day ama few second intu soo fariistay inuu eg khaladaadkiisa inuu qirto kow ilaa isaga mas'uulaha ilaa isaga waxa weeyaan shacbiyadiisa lumi ilaa isaga dadkiisii dhuuxa dalka u soo shubay Itoobiya ka iibiyay warumadii Soomaaliyeed bulshadii gobonnimo doonkaada Soomaaliyeed ee raali ahaada wargooyin maradii iyo cumaamadii way iga dhacday raali ahaada maxaa la waayay inuu yiraahdo intaas gobonnimo doonka ummadda Soomaaliyeed anagu waxaanu aaminsanahay dhamaanteed tahay gob wada gobonnimo doon ma ogolaato gumaysi iyo gunnimo kollaba allah sahlay waa loo xoog sheegtaa kala qayb iyo xukunna waa lagu hayaa ilaa iyo eega oo madaxweynihii dalku waxa aaminsan yahay waa lagu hayaa waanu ognahay inkasta oo gobonnimo doonkii SYL ka soo fircamay ama Axmed Guray ka soo fircamay oo la hogaaminaysa maanta aynan ogolayn
shu'uunta Soomaaliya Itoobiya inay u dhaafto Kenya inay u dhaafto oo ogol yihiin in wax kasta gobonimo doonka onlef iyo shacabka Soomaali galbeed lagala xisaabtamo wixii dhinaca Itoobiya ka imanaya Allah sahlay arrintaana boqolkiiba boqol ay ku saxan tahay ONLF oo ah waxa weeyaan dhaxalkii SYL Allah sahlay annagu wax kala dhihi maynay Allah sahlay waxa weeyaan ka hortaaganta Itoobiya Abiy Ahmed maalintii dhaweetay Kismaayo jananka Itoobiyaanka farmaajo uu soo diray ayro orado qashqashaad Allah sahlay qashqashaad Jubbaland lagu yiri janankii cirka lagu qabtay leeyahay halka ka laabo halkii laga mahadin oo wanalfa halkii Itoobiya maynan kaga hadhin Itoobiya xafiiskeeda inta loogu yimiday oo ra'iisul wasaare loo tagay baa waliba farta loo lulay war ma ahandi baasho inay saarata maan markay Soomaalinimo jirta dhalada iyo dhab ah iyo marka waxa weeyaan sheeka kale oo waxa weyn guracso waa kala labo cadawganagii soo jireenka ahaa intaan noogu tagnay koobtu fadhiyay Abiy Ahmed ba waxaanu ku nidhi arrinta mar labaad hadaad ku celisid dhagay faray ayaa Itoobiya ka dhacday dhagay faray runtaan loo sheegay rally gelin iyo waliba waxa weeyaan waxa salaam bu bixiyay Abiy Ahmed taas waa maxay waa ONLF inaanan gacan dhaaf aanan lagu samaynin oonan loo soo gudbin Soomaali weyn awalna waa loo shahiidayo waa loo dhimanayay iyadoo oo sida ahayd waa kii hadana la iibsanayay ee waxa weeyaan hanadadeedii ugu horeeyay ninka qalbi dhagax Allah saalay la soo wada dhiibay waniman yahow Soomaali Maxameday in la xisaabtamo diyaar inaa u tahaan umaleynaya war haddaydan doonaynin in la is xisaabiyo Allah sahlay oo aydan wada gobonimo doon ahayn waxa weeyaan in la isku mashquuli doono oo farmaajo daaqada lagala dhici doono oo xaq iyo cadaalad iman doonto ogaada war SYL inayna halka ku aamusaynin ogaada war gobonimo doonka onlef wuxuu ka soo furcamay SYL wuxuuna arkaa khaladaad fara badan oo laga galay damiirka iyo shucuurta ummadda Soomaaliyeed mid loo dulqaadan karaan oo aanan ahayn apologies iyo raali gelin wada socoto degdega loo baahnaa xilligeedii iyo sidoo ku aamusan yahay inuu xilka kaga tago wiilkaas ciyaal suuqnimo wuxuu ka rabana waxa weeyaan meel kasta baakirka sigaarku ku dhameynaya maya Itoobiya markaad u qoslaysid sargaal Itoobiyana madaxweyne maamul goboleedna aad leedahay waa Itoobiyan ma aniga haaya maya ka wada yeersiin kaamaanan wada yeersiinin haaya maya Ahmed Maxamed Islaam hadalladiisu shalay way cadcaayeen si cad ayuu hadlay aan u soo laabto hadaba dardaarankaygi yaa farmaajo raalika ah yaa farmaajo wata yaa farmaajo u sabcin haya ma Kenya wadata mise Itoobiya wadata halka labadaba ay daba qoodhi go'ay noqay aragna anagu dhuxdhuxle af meeshar daba aleelaale noqoy laakiin yuu u noqday sargaal ahmar ayuu noqday haddaba shacabka Soomaaliyeed hal baan u sheegaya Jubbaland idinka iskale Allah sahlay Soomaali galbeed ogaadeenayna idinka iskale Soomaaliyay Allah sahlay hadalka dhageysta banaadir iyo jawharna idinka iskale Somaliland iyo Hargeysana idinka iskale Djibouti iyo Cali Sabiixna idinka iskale NFD iyo Gaarsna idinka iskale intuu madaxweynaha kan farmaajo meesha joogay umadatan lama kala saari karo Soomaali baa la dhahaa waana gob waana SYL haddaan runta idin sheegana Kenya maanta la idinka soo weerari karo Soomaali Maxameday gobonimo doonkii jawxa jooga onlef oo waxa weeyaan Axmed Madow haduu qaldan yahay qabanaya farmaajana una gargaar Itoobiyana ka heleen Kenya ka heleen idinka waxa la idinka baahan yahay wada tiin bulshada Soomaalida xalaash ahayd ee wada qaylisay markii xadgudubku ku dhacay ninka kan aamusan ee saraakiisha Itoobiyaanka waxa weeyaan u neekinaya sargaal afqurmoon oo xabashi ah u ordaya billahi alaykum Soomaali Maxameday ilaahay intaad ka yaabtaan oo shuhadadiinii waaweynad xusuusataan oo diirka iyo Soomaalinimadu waxay tahay garataan farmaajo waa inaad ugu gashaan madaxtooyada waayo
qofku markuu iibsado naf nool bila aadanku waa kala labo qofka nool iyo waxa weeyaan dee qof cadow ay kala yihiin muwaadin iyo cadow qof nool qof iibsaday wakaanama qatala naasa jamiican bu xadiisna ah qofna waa qof intuu qofkii qabtay gacantiisa ku dilay qofna waa qofkii intuu qabtay iib geeyay batatan dastuurka federaalka Soomaaliya ayuu ka baxay uu ku xadgudbay wuxuu ku xadgudbay yani insaannimadii iyo islaamnimadii wuxuu dhaafay human right ama human being-nimadii ayuu ka baxay wax raali gelina oo leedin siiyay yaarka waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed aan ogeysiinaya meel kasta ay joogan daafaha dunida caalamka shayga la yiraahdo qayb iyo xukun kolka hor qabtaa ayna dhigtaan aniga waa iga codsi shakhsi aan ahay labo waxaan doonayaa anigu qofku markuu kugu dhufto waranka faleedhi iyo waxa weeyaan qaansadii uswata ay kugu taagan yihiin leebkii oo kugu taagan adoonan iska fujinin hadda tiraahdo walaalo waa qayb gobonnimada kamid ah qofka tiri walaalo ee ku caayay hadduu isgaran waayo uu yiraahdo walaal saaba maana ku moodeenina afwan waxa weeyaan waad iga badisay khayr allah ku sii wala saasaanu isku hayno uu ku dhihi waayo qofkaasi isaguna waa cadow kalkal Soomaali Maxamed deegaanka ku dhaqanta oo dhan shacabka Soomaali galbeed waa laga soo dhiibay shacabka Soomaali galbeed waayo waa Axmed Gureye SWLD qabiil kasto Soomaali ah ayaa ku dhaqan ogaadeynaya Soomaali galbeed waa la soo iibgeynay sida ariga qaarna diyaaradaha lagu qaatay ilaa iyaga miyaa la isweydiiyay 4,000 6,000 7,000 ayaa Ethiopia inta la soo qabtay loo soo dhiibay oo aan hayaa taariikhdoodii ilaa 25 ka badan baa loo soo dhiibay gabdhaha kuwa mula xabsiyada Ethiopia ee jeel ogaadeen Allah sahlay way baa Soomaali inta lagu laabto loola xisaabtami waayay oo Hargeysa loola xisaabtami waayay oo Garowe loola xisaabtami waayay oo Taardhuleed iyo Galmudug loola xisaabtami waayay oo waxa weeyaan Xamar iyo Gaalkacyo loola xisaabtami waayay macnaha ku jiro koobtaas ummadda Soomaaliyeed baan doonayaa inaan fahansiiyo oo dhadhamiyaan oo ka soo jawaabaan Allah sahlay macnaha ku jira meesha macnaha ku jira waa SYL weeyaan waa gobonnimo doon سؤال كلام شيء هدي جوابتي وقف ضيد قف نور قلك اللي ديبه عدو قعنت اللو قليو جوابها وقف فضي أون عيار جرتوا حكم ذاك ماشى أد شعبك اللو قصو سدر قيسوك له قناع سيجين النجاح ده اللي يجري بالله عليكم ولما شعب كان يجري قناع سيجوا النجاح قبت جبهة دا أو NLF وضدي حقها هيد أي كسرته وعليكم السلام ورحمة الله إلا إيجا ويهيسا وحان سدونيا Soomaaliya madaxweyne male haday madaxweyne lahayna Allah ha u naxariisto nin sixran baa fadhiya meesha oo eega Jubbaland faruuq ka baxday oo way ku deysay because waa nin aaminsan saraakiisha hoose Etoobiyaanka ahayd ma ahan Abiy Ahmed iyo lama magarsa ma ahan saraakiil hoose laba alif le iyo saddex alif le laba xidig le gaashaanle ayuu leeyahay halka ay qabto saaya sameeya Abiy Ahmed markii farta loo lana orano arinta mas'uul kama yi kuma jira buu arrimaha Soomaaliya because all of anu ka dambeeya arrimaas oo NLF wa SYL Soomaaliya oo dhan iyada mas'uul ka ah inta Ilaahay ka sokaysa iyada xagga Ethiopia laga xisaabtamaya wadadii xaq ahayd sax ahayna way haysaa kumuna ay kaysana halkaas ee wuxuu ku kacay oo kale maanta farmaajo Jubbaland fargelinteedii waanu aragnay saraakiisha Etoobiyaanka haydo waxa soo dirsanayna waan aragnay tuu doonu qoray laakiin shacabka Soomaaliyeed ma baasaboorray kala wataan ma ajnabi ba garoomada iyo airportada lagu qabanhayo dadku miyayna ahayn dadkii shuhadadu ay dhaleen Soomaalida ah miyayna ahayn way baa diyaaradaha loogu qabanaya magaalada Xamar way baa loogu ganaaxaya mataasa
يا جوبنما متاسا وحلا السيدة وضا شعبك الصومالية تكوى بالله عليكم وحي حنبا دي حاوليان لدي نينكاني دبقو دودا كفا مدحتنمات دالكنا ما هين كرو أنا وحانا من سنة هاي شعبك الصوماليات ee waliba ku dhaqan banaadir inay kacaan sida ugu dhaqsaha badan inay u kacaan ninka kan sanadka u haray inuu san dhamaysanin waan codsan lahaa waayo hal dhacda inta qarxu ka dhacay magaalada xamar ee carrigii Soomaaliyeed Allah saale annagu waanu ka naxaynaa waayo waa caasimadii ummadda iyo qulubta ummadda Soomaaliyeed weeyaan waanu dhibsanaynaa qarax kasto ka dhacana madaxda oon la way tacsiyeysaa waxa weeyaan qof kasto caaqil ah oo Soomaaliya oo haliyay waa tacsiyeeya way u tacsiyen waayo shacabka Soomaaliyeed u yaso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya macnaheeda yaa sheegi kara waa kuma ninka sheegi kara way madaxweynuhu yuu madaxweynuhu yahay waxaan hadalkii ku soo gaabinayaa Soomaali baa leh Soomaaliya haliyay baa u maqan Soomaaliya qalbi dhagax baa u soo socdo u maqan Soomaaliya wiil badbaadin kara ayaa u dhashay oo u jooga intaas uu dhiigu ka yaacayay oo shacabka Soomaaliyeed oo arkayaan waxba tari karin madaxda maamuladu ay soo dhiibayeen gobonnimadoonka onlef ee SYL lama xisaabtamin in la xisaabtamana هدف كي النيادة ومجرته because وولالاهود ويان والصومالي فهم ويدا قميسي وحا ويهي ما أنت أنا وحان كده قالمينا إتوبيا يين الصومالي النور دافين بالله عليكم قوة نما مطاهي مسماها وحان دونيا موادنك الصومالي جايه بلدك هي إنو أقادو كل كاستا أو وحا ويان يعني تسالة آبان كاللاب تبا meel kasta oo tagta caalamka way urursanaysaa Soomaalidu way soo imanaysaa waa wada walaalo waa silatu raxim hargeysa illa laas casir wallahi been idin sheegi maayo qurbaha saasa la isugu urursada wax yar kadib markaa sheekaysataan bal anna maamul hebel baanay anna waxaan idin leeyahay Allah sahle waxaan idin leeyahay maamul hebel ma Soomaali baad tihiin قنبا مضح إذن الله سهل قن أيام مضح إذن ورهالي واحد دفاع يلو باهي مالين دويتو الله سهل ما ملك الدولة الصومالي ستيت ريجن تصالي يربان إنسان يا أو قابن أو قفك عقلك يا صومالي فهمك رب الله عليكم أحمارة وحالة يدميره أضبا أضها أقصو كيسا ee u xigta ayay diirtaan oo ruugaan habeenkii axmaarada iyo dameeraha weeyaan madaxweynaha dalka ogaadeenaya ee Somali State Region madaxweyne Mustafa Maxamed Umar oo lagu xaman jiray axmaarada inuu cilaaqaad leeyahay axmaaradii sida ahayd ee la wanaajinayay ee waxa weeyaan siyaasiyad doon u soo dhaweysanayay ayaa intay daba martay ayaa waxay tiri surwaal gaab itixaad iyo alqaacida ayaa timid ogaadeenaya tanta ya axmaara kala leedahay ogaadeenaya ama Soomaali galbeed waa la yaqaana axmaara Soomaaliya danta kala leedahay waa la yaqaana axmaara waxay doonaysaa waa la wada garanayaa laakiin mid baan idin sheegaya qulubta xayigi jawaabaha isla kolkaaba ay bixinaysaa idin sheegaya afayeenka ONLF Cabdiqaadir Sheekh Xasan Biixi Hirmooga Cadaani ayaa isla kolkiiba jawaab rasmi ah bixiyay iyadoo madaxweynaha dalka ogaadeenaya madaxweynaha Soomaali galbeed yaaban yahay oo Itoobiya waxa uu IBRDF wixii ku eedaysay oo sheekadu culus tahay ayuu hadlay lagama filaynin Mustafa Maxamed Umar muuna ka filaynin Cadaani inuu durbasa u hadlo shacabka u dhashay gayguna mayna islahayn Cadaani Hirmooge ayaa durbasa u hadli doona koos shacabka boqolkiiba 9 madaxweynaha way mucaarasaan oo ka soo horjeedeen macnahu maxay tahay isla degdeg loogu soo jawaabay ninkii masiixiga ahaa Itoobiyaanka ahaa oo ahmaarka ahaa oo been abuurka ku sameeyay gayga Soomaali galbeed waayo wuxuu og yahay
oo damiirkiisu siiyey halyeygaas inuu mas-uul ka yahay Mustafa Cagjar laftigiisa oo gobonimo doonku mas-uul ka yahay geygaas Allah saale oo Soomaali isagu mas-uul ka yahay oo Jubbaland isagu mas-uul ka yahay oo Xamar isagu mas-uul ka yahay oo Hargeysa uu mas-uul ka yahay uu u soo halgamay oo xaq u leeyahay badbaadada ummadda Soomaaliyeed annaga wuxuu yiri kolna surwaal gaab hana ugu sheegina kolna itaacada idinku ma annagaan la idinku waxa weeyaan idinko jaahiliina waxba muuna ula hadhin qofka aqoon-yahanka ee Soomaaliga ee wadaniga uu garan hayaa cadawgiisu qabtu soo socdo uu fahmi karaa waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in badan oo maanta kamidihii way fahmeen ahdaafta gobonimo doonka Jubbaland baan leeyahay Puntland baan leeyahay boqolkiiba boqol way mahadsan tahay waxay fahantay gobonimo doonka oo laf wuxuu halgamay kaasa maanta meel kas shacabku waa wada jawx wada on hada iska daa ma aan ogaadeen waxaan ka hadlayo ma aan Soomaali galbeed waxaan ka hadlayo waa Puntland way Garowe waa wada on maanta Hargeysa maanta waa wada on laf waayo de alxaq lima sabaq xaq iyo cadaaladda waa la raacaa baash eg xaqa iyo baadilkuna meel ma wada galaan waxa ilaahay mahadiya inay shacabkii Soomaaliyeed fahmeen waxa iyo midhaha iyo macaanka ay gobonimo doonku uu u horseedayo ee uu leeyahay astaan ay ka dhigtaan ONLF waxaan doonayaa kolka inta yare gunta ah ilma adeerayaalow Soomaali Maxameday in yaroo guna ayaa inagu hadhay gunta inagu hadhay inaad ka sifaysan ayaa loo baahan guntu waa maxay adigu hadda tahay caamil shaqaalaha oo meel ka shaqeynaya oo qofkii shaqo wanaagsan u qabad qofkaas waa inuu thank you ku yiraahdo waa inuu waad mahadsan tahay yaa akhi ku yiraahdo waad mahadsan tahay ala laqal waa inuu ku yiraahdo waad mahadsan tahay gobolka kan Soomaali galbeed Soomaali weyn waad mahadsan tahay kama sugay xitaa wuxuu laakiin gobolku ka sugayaa Soomaali weyn inay intay kacdo oo garato gobonimadu waxay tahay oo wixii gun u geenay ay garato inay inta iska qabato gidaarka ku tiriso 5 xabo dhafoor ka dhufato ayuu u baahan yahay maanta Soomaaliya waliba Soomaaliya markaana wada dhihin koonfur kolkaan ka imaado Xamar iyo eeriyadeeda ilaa iyo waxa weeyaan meesha la yiraahdo koonfur galbeed al-shabaab baa gacan buuxda ku haysa shacabki waa la qarxinaya gawaaridii baad baa laga wada qaadaya ولذلك ayaa wuxuu isku dayayaa madaxweynaha inuu la xintamo madaxweyne maamul goboleed iyo maamul nabada oo saliima oo istiray oo u soo sheeday dalka oo Soomaali oo dalka iskale ayuu wuxuu doonayaa diyaaradaha inuu ku xanibo uu doonayaa inay sida isagu qaraxa u sii daayay Xamar ila Xamar waxa qaraxa ku sii daayay waa farmaajo inay sidaas oo kale ka dhacdo oo Jubbaland burburto oo Puntland burburto oo Hargeysa Soomaaliland burburan oo wax kasta taxta waxa ay noqotay aqdaam Ethiopia ayuu doonayaa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed taas waxaan leenahay wa calaykum assalaam waan soo qabanay walaal waxaan leeyahay madaxweynuhu waa ku margatay aad iyo aad buu waxa weeyaan uu ula waayay waxaan leenahay on la fataa mas'uulka taas ONLF oo nool Ethiopia intay soo gudubto walle iyo bille iyo talle inayna Soomaaliya faraha la soo galin dib u laqaan kulaanay taas gaftaad gashana raali gelin kama bixinayside madaxweyne oo shacabkaagi baanu ku kicinaynaa ha iska ka qabtaan waayo ma noolid marka asxaab badan ba waxay leeyihiin soo qabta umana taligan waqti dheer inaan meesha ku sii jiro walaalayaal ummadda Soomaaliyeed ay alxaq lima sabaq qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil bay aayad quraanina ahayd looma baahan doono gobonimo doon Soomaaliyeed intay ONLF hal wiil ka nool yahay aan wax kale dhihi maayo intu Soomaali galbeed hal wiil ka nool yahay Ethiopia xaggeeda cadow Soomaaliyeed kaga iman maayo maanta u fiirsada Puntland Somaliland Jubbaland ar ilaahay baan idinku dhaarshay saddexdooda caasimadood nabad ma tahay mise ma way buu qarax uga dhici laayay way bay nabadgeliya darro uga dhici laaday way baa caasimadii hoyga ummadda Soomaaliyeed markasta qarax uga dhacaa intaas inaan iswada weydiino ayaa loo baahan Kenya jabhadka ahaa iyo Kenya aqoon-yahanka ahaa
يوي كو كاستا او دشاي جيغا سوماليا جيبوتي كو دشاي حق بو كله جيغا انو كهادلو واي عاصمديسا غود وا مقدشو ويان كانت aanan garanin sidee buu dalka madaxweyne ugu ahaan karaa ila ma ahan inuu matali karo dadka bal iska badaaye one day madaxweyne dalka kama ahaan karo farmaajo waxaan arkayay oo kale xildhibaano kuwa sheegan haya oo nin jiis maxay la dhaho oo horboodayo maanta oo hadlayay wuxuu ku leeyahay xildhibaankaasi Allah sahlay hadda koorna waan ka hadlay xildhibaankaas xildhibaan soo fadaroobay weeyaan oo xaqan iyo dibadaha ka yimid Allah sahlay madaxweynaha Jubbaland annaga noo kaalay oo xamar kaalay waxa weeyaan dambiyadii aad gashay qiro waraade xildhibaan wadamada Yurubta ku soo tababar xumaaday macnihiisu hadalkiisu ma waxa weeyaan kaalay waxa weeyaan Jubbaland iska kaalayo shacabka Soomaaliya waxa qabano kaalay xamaro halkan qaraxu ha kugu dhameeyo oo halkan dhibaatada nagula arag oo burburka yaani al-shabaab yaan la dagaalamin miya waxay doonayaan dawaynta al-shabaab yaana la dagaalamin al-shabaab ma ahan cadowgeena Ethiopia ma ahan cadowgeena inta badan Kenya arkaan we believe annagu waxaanu rumaysanahay cadowga gayiga Soomaaliya faragelin kasto ku haya inuu si degdeg uga laabto oo kala baxo laakiin waxaanu aaminsanahay Allah saale hadaan nahay shacabka Soomaali galbeed shantaas nibayna ka reebin sharciinuna ka reebin kow ninka madaxtooyada loo dhigay Soomaaliya gabigiisa banaanba ma aha nin gay kara madax banaanida iyo gayiga hanashada qulubta wadaniga iyo aqoonyahanka ummadda Soomaaliyeed ma ahan mana istaahila yaaqo hadana qalbigiina la raali gelin karin hadana la raali gelin karin Soomaali Maxameday oo dhacdo kasto dhacday qarax kasto dhaca qofka muwaadinka ihi wuxuu u dhigmaa muwaadiniinta 45 milyan qofka muwaadinka Soomaaliyeed aad buu qaal u yahay ma ahan raqiis maxaa raqiis ka dhigay dhiiga shuhadada iyo dhiiga shacabka Soomaaliyeed waay maxaa raqiis ka dhigay inta haduunan garan haynin madaxweynaha hadleedihiin waa madaxweyne oo waa farmaajo anigu garan maayo meesha uu madaxweyne u yahay hadaan ay halgama saxane cid uu matalo xataa shakhsigu matalo ilaa eega uu madaxweynaha u yahay wallahi garan maayo laakiin waxaan aaminsanahay oo ku dhaaran karaa wallahi inuuna Soomaali madaxweyne u ahayn farmaajo wallahi inuu haduu sidaa yahay Soomaali inuuna madaxweyne u ahayn
ahey waa idinkaa hadda allah saale caawa in badan baan hadlay 40 iyo waliba eegaan fiiriyay daqiiqado ayaan hadlayay waxaan idinka codsanayaa bulshada inaad la sii wadaagtaan wixii wanaagsan ee qulubta ummadda Soomaaliyeed u wada wanaagsan allah saale niman yahow wax la shubo ama la hadiyeeyo adduunka waxa ugu qaalisan waa dhiiga Soomaali markaan la hadlayo anagu waan ogahay inay waxa weeyaan taliidata qaataan iyo inaha muntirati la yiri inay ku dhaqanto I believe waan ogahay waana waxa Ethiopia noo gumaysanaysay qarniga dheer Allah saali inkastoon eega ka adkaanay oo Ethiopia eega raata u fadhino haddaan nahay ummadii Soomaaliyeed waxaan doonaynay dhiigi cama waxaanu doonaynay ma ahan mid damiir laawa oo shacabkiisa aan raali gelin karin inuu hogaamiyo hago ummadda Soomaaliyeed ma ahan Soomaali Maxamed marka waxaan leenahay kolka hore ha istaagaan haday yihiin Soomaalidii dalka lahayd haday yihiin oo dhaladka yihiin oo waxa weeyaan dhashi shuhadada SYL ay meesha ku jirto yihiin anu waxaan ka codsan lahaa ninka 500 iyo kumanaan kolka la qarxiya aanan dadkiisa xataa raali gelinta u qoorin madaxweyne idin ma ahane albaabka yaaqaha loogu galo waraway dadkii la dhihi jiray waxa weeyaan waa dad adag oo waxa weeyaan firfircoon rekoonfurka awa waryaaraha rekoonfurow Allah sahle Soomaali baatihiin dhalada oo la yaqaano Ethiopiankana nacab dhalad ah oo waxa weeyaan bayur oo 2007kii dhirbaaxadii shanta Ethiopia saartaan adeerayaalow gacalayaalow anagu makhraati baanu ka nahay haddaan nahay Soomaali galbeed makhraati baanu ka nahay waxaan idin sheegayaa wargunimaha aqbalina go'ooyinow Soomaali baatihiin hoygii caasimadda Soomaaliyeedna waa degantihiin war ninkan dibiga ah waa dibin madaxweyne dalka uma ahan Soomaaliya farmaajo waa dibi wallahi inuusan dibiga dhaamin dibigaaba xooli war waa dameer baan dhihi karaan anoona aflaga doonin waayo malaayiinta inta leega shacabka Soomaaliyeed hatta isku daynu raali geliyo one day war intii uu xilka hayay intee qarax ba dhacday intee musiiba dhacday intee buu dad Soomaaliyeed laayay intee baa waxa way asha wax qarxiyeen isagoo shacabkiisa raali gelinayay waligii mid aragtay iska badaaya qalbi dhagax wuxuu mujaahid u soo halgamay Soomaaliya Soomaali galbeedna ugu dambeyntii cadawgiisii ka xoreeyay iyo difaaca ummadda Soomaaliyeed wali miyaad aragteen isagoo shacabkiisa la hadlaya oo leh raali ahaada balanqaadyadii uu idin sheegay fulinaya way mahadsantahay Puntland Somalilandna way mahadsantahay Jubbalandna way mahadsantahay shacabka Soomaaliyeed xamar ku dhaqana way wada mahadsan yihiin waxaan idinka codsanayaa anigu wanaamayo gun inaad si ahaataan inaad maalin gob noqotaan baa dhaanta maalin one day inaad gob noqotaan Soomaali Maxameday ayaa wallahi dhaanta tani tii la daawanayay ama waxa weyn la sii eeganayay ma ahan ninkaadan maalin ku baranina sanad kuma baratid macquul ma noqon hayso farmaajo inta joogay inaad iska baran weydaan oo loo bixiyay nabar iyo naxdin oo ogtihiin qaraxyadii shoobiya wixii ka dhacay hatta one day raali hada shacabka Soomaaliyeed dhihin maanta isagoon ciidan haysanin oo madaxtooyada ilaa wardhiig leeyfil wardhiig inta u dhaxaysa ama suuqa bakaaraha aanan gaari raaci karin hadda gaari ma raaci karo anigu waan ogahay inuu sheegto madaxweyne ummadda Soomaaliyeed Axmed Madoobe maanta wuxuu ku dhaxloweyn karaa Kismaayo oo dhan ayuu ku dhaxloweyn karaa ma ahan inaad arkay labaduba aanay hadii dhinac leh waa Soomaali wada madaradii laakiin kan nabadgelyo keenay Puntland nabadgelyo keentay oo Soomaaliland nabadgelyo keento dhulkooda waa la isku wada haleyn karaa ninka waxa weeyaan xamar waliba madaxtooyadii uu deganaa hatta xildhibaanada
federaalka Soomaaliya alqaacida al-shabaab ka wada buuxan waxa weeyaan baada xamar lagaga qaado baada xamar lagaga qaado madaxweyne uma noqon karo ummadda Soomaaliyeed iska badaa kuwan yar oo eega maamulada ah shanta waaweyn ee Soomaaliyeed iska badaa xamar xitaa madaxweyne uma noqon karo sidaas darteed qalbigii xayile ee dhiig leh damiir lihi wuxuu leeyahay down farmaajo down nama geedid madaxna ma tiida down dhiigi cabbe down waad fududahayna dhaaf bax gadiga ka bax laag dherbaaxo faraxmaar iyo farfaranji iyo fartalyaani iyo waliba waxa weeyaan hardi in lagaga saar madaxtooyada mooyeenay waligii iyo allihii kama bixi doono nabar iyo naxdin meesha ma dhaafayso shacabka marka ku dhaqan Soomaalida koonfur ee magaalada xamar wallahi dhibaato culus baa haysata anigu waan u damqan hayaa shacabka Soomaaliyeed damqadaan oo la abaabulo shacabka oo waxa weeyaan xoog lagaga saaro madaxtooyada dalka xaraankan Itoobiyaanka ee la afgaran layahay ayaa waajib jihaadku qalbu yahay fardul ayn ma aha fardul kifaaya in la isdaafiyo lagu jihaado waa istaahila farmaajo warma kici kartaan dhalinyaroy ma kici kartaano mise waxaad sugaysaan ogaadeen iyo Soomaaliga kolkay madax banaane hesho inay idin soo gurmato annagu waanu ognahay dhalad ahaan inuusan ninkan Soomaali ahayn we know maba ahanba 3 sano xil soo hayay one day shacabkiisa xitaa raali ahaadaan dhihin ma ahan madaxweyne waxa weeyaan kaas marka isdhaafay yahay ragi goobta waan la hadlayay qiinay baasha Allah saalay sida loo ridanay qiinay reer koonfurka ha isdhaafiyaan baan leeyahay farmaajo meesha yuuna gayn yuuna fadhiisanin waxa weeyaan loo ogolaanin war soo dhaafiya alqaacida anaga idinka siisay oo hablihiinni baa la kufsaday oo idinkii baa la idin wada dumiyay oo waxa weeyaan baad baa la idinka qaadaa 24 jeer maxaad ku nooshihiin deelba wayna ahayn Soomaan deel madare xamar iska soo qaxo farmaajo daay iska soo qaxo kaalay Kismaayo iyo Puntland iyo Somaliland iyo xaqan u soo yaaca kaalay ogaadeeniya ka soo yaaca meesh wayna ka ahayn Itoobiyaanka saad ula dagaalanteen farmaajana ula dagaalamo waa Itoobiyaankii buu ka sii liita waliba Tigray weeyaan waxa weeyaan iska soo saara ayaan ilaahay intaas waa iga dardaaran heel kale ma aan waa heel shacab waa heelka shacabka iyo bulshada Soomaaliyeed weeyaan inay inta garato weeyaan waayo ajasaa'ul ihsaan illa al-ihsaan shacabka Soomaaliyeed waa gub laakiin gumba haysata guntu hadaynan aqoonba waxa weeyaan xataa gumbaan idin dhahaynin gobbaan ahayna ayna idin dhahaynin annagu haddaan nahay shacabkii Soomaali galbeed waxa weeyaan arinta iyada ah xuquuqul insaankii oo lagu tuntay baan u aragnaa inay maxkamadaha dawliga ee caalamiga ee waxa weeyaan dambiyada dagaalka ninkan crimination ku galay la geeyo weeyaan waayo al-shabaab la dagaalamaya 24 jeerna baad bay ka qaata madaxweynaha farmaajo bixiya baad ka see ku dhacdaa marka see ku dhacdaa dadka in dhinac kasta laga xasuuqo laga baabiyo wartay hal laga kaca fadhiga yaa hal laga kaca fadhiga khawaarijta tan farmaajo biila isaga waxa soo wada annagu waanu naqaanaa maslaxada ummadda Soomaaliyeed waxay tahay haddaan nahay Soomaali galbeed Sooma wallahi iyo billahi iyo tallahi waanu naqaanaa ogin annaga meesha waxa weey maslaxada ummadda taalo cadow baa gudaha u fadhiya mas abrisa ayaa raarta u fadhiya ummadda Soomaaliyeed wuxuuna matalaa madaxtooyada filla Soomaaliya xamar kaliyeeta intaas madaxweyne u yahay يا على لا هدان راعي لوقت قالين يا عقت قالين آهي هدي أتقرال كتهين إنه أنت مثلو مدحوين أو هذا يا هدي دان كوا هم بواجب كيد سارن وحويان إن هذا المرسوس بحثان أنت دكتور هذان سيدا دانير كي أنت دكتور هذان إن أترادان داون فرماجو داون نور يا نحدين داون ديك شعب كميرته داون فرماجة هانا دافo han naga tago sargaal u taliya hana dhaafo sargaal xawashi ama kasi madaxweyniin maxaad ka nooshin marka maxaad Soomaali ka tiin aw qabkiini anigu intaasan leh Axmed Madoobe oo shalay yimiday oo maamul goboleeda ayaa sargaalkii farmaajo soo dirsaday malaayiin da siiyay dhagta intuu ku dhufay waraa ka laabaalka diyaaradaada iyo adigu ballaabta yiri sool baan siinay Axmed Madoobe waayo wuxuu muujiyay geesinimadii iyo waracnimadii iyo dhiigii ummadda Soomaaliyeed
yes of course waa geesi warday garee laba nin kama wada qosliso geesiga libintiisa iyo gartiisa la siiya anigoo lay dulmiyey oo wax kasta laygu sameeyey baana ummadii waxba u haysanin taankii inaad tirahdaan weyn taankii Soomaali galbeed inaad tirahdaan weyn andi ma aha inaad tirahdaan waagil dhibi on lef waha kan waha inaad tirahdaan waa inaad tirahdaan on lef waa halyeeyadanadii SYL waana inaad bogaadisaan fikirka gobonnimo doonka waana inaad ka hadhaan gunta madaxtooyada fadhida ee Soomaaliya waxa ummadda rifaysa inaad ka hadhaan oo gob noqotaan weeyaan yaaqo aad baad u maasantiin waxaan idinku codsanayaa kol labaad iyo kol saddexaad baa inaad mudaharaad ka dhana farmaajo lagu qaado ilaahay nasrigiina berri subaxii aad ku bilowdaan oo ninkaa la waayo araggiisa la waagaa araggiisa in la waayo anigu waan ogahayo horta Soomaaliya ma sii joogay waayo on laf baa carrada la wareegtay qalbi dhagax ayaana dhiigga iyo dhuuxa u soo shubo Soomaaliya iman doona ilaahay nasrigiina madaxweynaha jamhuuriyadda madax banaan Soomaaliya qalbi dhagax baanu ka dhigaynaa qalbi dhagax ayaa matali doona waaba haddaan doonadii ma ogolaanayna laakiin faragelin inta la eg oo Soomaali waxa weeyaan loo geysto ma ogolaan haddaan Soomaali haddaan gobonnimo doonka ma ogolaanayno waxa weeyaan gun inay raarta u fadhidana iyadana ma ogolaanayna waliba axmaar xun oo isku kaajo axmaar ah oo sargaalihi inuu farta ugu yeero madaxweynihii dalka ma ogol diidnay taa diidnay dhaha oo isdhaafay yaaqo wabillahi tawfiiq hada wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh down farmaajo down nabar ya naxdin